Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan kusoo dhawaada fiidiyogeena maanta oo aan ku baranayno reinforced concrete slabs. Ugu horreyn waxaa isweydiinaynaa waa maxay reinforced concrete slab? Balse inta slab aan isla baran waa maxay reinforced concrete? Concrete waa shub, reinforcedna waa bir, birta shubka loo isticmaalo. Marka waa shub bir wato waaye intaas u fahan reinforced concrete, okay? Slabkeena ayaa wuxuu ka kooban yahay bir shubkii iyo shubka caadiga ah ayuu ka kooban yahay oo la isku daray. Marka waa maxay marka reinforced concrete slab? Adduunka ama caalamka waxaa ka jiro noocyo kala duwan oo structure ah. Structure waxaa la dhahaa wax qaybo kala duwan ama ashyaa kala duwan oo la isku xirxiray ka samaysmay, okay? Guriga waa structure, airport waa structure, buundada waa structure, maxaa la dhahaa wadada waa structure, biyo xireenku waa structure, waxaas oo dhan waa structure waa. Marka annaga waxaan ka hadlaynaa dhismaha. Gurigeena structure-ka uu ka samaysan yahay ama uu ku taagan yahay xubin ka mid ah weeye slabka, kaasoo na siinayo ama noo ogolaanayo inaan helno horizontal flat surface. Waxa uu noo ogolaanayo waxay tahay inaan helno oogo yacni fidsan oo markaas awood noo siinaysa inaan ku dul soconno ama ku dul istaagno ama shay aan dul saaranno. Oogadaas marka waxay noqonaya laba mid ay noqonayo, ama floor ay noqonayo ama waxay noqonaya ceiling. Waxay ku xiran tahay hadda meesha aad taagan tahay. In civil engineering terminology waxaa u naqaanaa kan hadda slab u naqaanaa, kanna waxaa u naqaanaa slab, kanna waxaa u naqaanaa slab, okay? Marka goormo floor noqonaa goormo ceiling noqonaa waxay ku xiran tahay meesha aad taagan tahay. Tusaale ahaan qofka halkaan taagan, slabkan qofka taagan oo kale, slabka uu ku taagan yahay waa floor, waa sagxaddii uu dul taagnaa. Balse isla asagoo inta taagan hadduu kor fiiriyo kan wuxuu u noqonaa saqafkii ayuu u noqonaa, okay? Roof ama ceiling saqaf ahaan camal ayuu ugu shaqeynaa, okay? Balse qofka halkaan taagan isagana slabkan ayaa waxa u ah floor, waa sagxaddii uu dul taagnaa. Kan ka koreeyana wuxuu u yahay roof ama ceiling ayuu u yahay, okay? Inaa isla fahnaa rajaynayna. Markii dhismaha la joogo, slabka waa xubin ka mid ah xubnaha uu ku taagan yahay guriga, kaasoo marka na siinayo ama noo ogolaanayo inaan helno oogo fidsan, taas oo marka awood kuu siinaysa in yacni ashyaada aan dul saarano waxay doonaan ha ahaadaan, dadkuna awood u yeeshaan inay ku dul socdaan. Inaa isla fahnaa ayaa rajaynayna qeexitaankaas. Marka wuxuu ku dhahaa thickness-ka oo concrete slabka uu yeelanayo waxay ku xiran tahay the load imposed on, culayska loo soo isticmaalay oo lasoo dul saaray ayay ku xiran tahay thickness-ka uu noqon doono. Thickness-ka waxa waaye waa cabirkan waaye, hadaa si fiican ugu jeedo cabirkaas ayaa waxaa la dhahaa thickness-ka uu yeelanayo, dhumucda uu yeelanayo inta ay noqonayso waxay si toos ugu xiran tahay culayska lasoo saara. Kullama culaysku u weynaado waxaa u baahan tahay in thickness-kana aad weynayso. Sidoo kale waxaa support gareeya intaan midkood ayaa support gareeya. Slabka ama beam ayaa support gareeya, ama waxaa support gareeya column ayaa support gareeya, ama waxaa support gareeya wall derbi, ama waxaa lagu support gareeyaa dhulka. Intaano marxalaba ama intaano supportyaal ahba wuu yeelan karaa. Mar beam ayaa support gareeya oo haayo, mar column ayaa haayo, mar derbi ayaa haayo, marna dhulka ayuu yaalaaba, okay? Qodobka labaad marka muxuu ku leeyahay waxaa la qiyaasay, xaqiiqo ma aha. Maadaama adduunyada wax badan wax lasoo dhisanayay, lasoo maray waqtiyo kala duwan, waxaa la qiyaasay in concrete slabka uu jiri karo ama uu waari karo 30 sano ilaa 100 sano, okay? Marka waa goorme laakiin goormuu 30 sano ilaa 100 sano uu jiri karaa cumrigiisa? Waa haddii lagu dhiso concrete ama shub grade fiican leh. Grade-ka waa awood waa. Awoodda concrete-ka haddii awood fiican loo isticmaalo, sidoo kale grade of steel fiican loo isticmaalo, bir awooddeeda fiican tahayna loo isticmaalo, waxaa dhacayso concrete-kaas in caadiyan ama sida la qiyaasayo uu noqdo 30 ilaa 100 sano cumrigiisa inta u dhaxayso, okay? Inta badan waxaa lagu dhahaa markii laga hadlayo guryaha caadiga ah oo deegaanka ah, grade-ka ku habboon waxaa lagu leeyahay oo inta badan la isticmaalo, inta badan waaye mar kasta ma aha, waa M20 waaye, okay? Waa 20 Newton per mm square, okay? Awooddiisa intaas la eg, okay? Slabka laba group waaweyn ayaa loo qaybiyaa, waxayna ku xiran tahay hadba qaabka loo support gareeyo, okay? Haddii dhulka lagu support gareeyo waxaa la dhahaa ground slab, okay? Ama slab on grade ayaa loo yaqaanaa, okay? Slab on grade ayaa loo yaqaanaa, waa markii dhulka lagu support gareeyo. Haddii dhulka aan lagu support gareyninoo dabaqa koowaad iyo wax ka sarreeya u yahana waxaa loo yaqaanaa suspended, okay? Waa macnaha suspended waxaa la dhahaa wax hawada sare macnaha dul heehaabayo oo kale. Marka waxa ma dul heehaabayo waxaa laga wadaa dhulku ka kacsan yahay bisa laga wadaa, oo dhulka wax contact ah lama laha. Marka qoraalkan haddaan soo koobno ground slab marka maxaa la dhahaa?
slab ka sidiisa markii la shubayo wuxuu kaaga baahan yahay formwork waxa la shayga wax qaabeenayo okay formwork gaadiga kala soo qaadanaysaa hadhow marka maxaa sameynaysaa birtii iyo wixii loogu talagalay ayaa dhigaysaa okay kadibna hadhow maxaa lagu shubi doonaa shubkii ayaa lagu shubi doonaa okay soo marka kan waxa waaye waxaa sameynaysaa horta kow dhulku yaala okay kan dhulka ayaa la dhigaa waa ground slab waxa loo dhahaba dhulka ayaaba support gareynay laakiin dhulka ha support gareey maxaa waxa laga rabaa inaad marka hore u diyaariso subgrade soil okay subgrade of soil waxa laga rabaa meeshan waa la qoday fuutino iyo foundation iyo asaas loo qoday waa la carab buuxina si fiican in loo yani compaction loogu sameeyo loo jukeeyay rabtaa dhagaxaanti qombaha iyo wixii lagu adkay karaa lagu adkeena markii saas aad loo qurxiyo loo diyaariyo caradaas iyo asaaskaas loo diyaariyo ayaa waxa la sameeynaa concrete-kii in lagu shubo macnaha waa lagu sii dul shubo markaas kadibna waxa la sameeynaa wala la falgareena floor kadibna waxa la sameeynaa marka floor-kii sidaas ayaa loo level gareena oo dhulka ayuu la simeeyaa macnaha waa sababta loo dhahay ground slab inta badan guryaha iyo goobaha ganacsiga dhismayaasha ganacsiga waxaas lagu arkaa okay sidoo kale waxa ground slab sida caadiga ah less expensive waa lagu dhahaa markii loo fiiriyo suspended slab yani waa ka qarash yar yahay midka caadiga ah oo suspended ah sawirkan hadaa fiiriso gurigan hadda meeshan waxa waa ground-iga waa okay meeshan waa dhulkii waa jiid waa okay ground level allah okay ground level keena marka hal biyana ka hooseeyo sida u jeedid biyaanooyinkan oo kale dhulka ka hooseeyo waxa la basement ya allah okay biyaanada oo kale marka rabto marka ina floor u sameyso sagxad waxa sameynaysaa waa kana had slabkii aan ku dhahay ground slab waa halkan midka yaalo waa okay okay kan wixii ka koreeyna waxa la suspended kan waa suspended kan waa suspended kan waa suspended taas waa suspended okay waxa kale oo ka koreey dhan waa suspended waa okay soo marka maxay kaaga baahan kan wuxuu kaaga baahan yahay formwork kan geesaha formwork laga celiyo biso baahan yahay halkan ilaa waa ciidi moogta halkan waa soil waa carro si fiican loo diyaar gareeyaa meeshan kugu taalo okay laakiin kan kale muxuu kaaga baahan yahay formwork hadii u badato kan waxa laga yaabaa geesaha bis inaad ka support gareyso la shubka marka la shubayo wax celiyo u baahan yahay geesaha kale in laga support gareeyo okay balse dhulka celinayo okay balse midkan kale wuxuu kaaga baahan yahay hoos inaad ma aragtay safiito ka geliso hadhow jeega ku support gareyso ayuu ka rabaa okay jeegaga sidaan kale ugu celinay okay waa sawir hadda isla aragno kale okay soo marka wuxuu ku dhahay marka wuxuu kaaga baahan yahay structural support yani support badan uu kaaga baahan yahay inaad si fiican u celido u haydo raba preparation badan uu kaaga baahan yahay diyaar gareen ina yani waxyaalahaas uu kaaga baahan yahay okay design badan waxaas uu kaaga baahan yahay okay soo marka suspended slab u imaano suspended slab waa slab that are not in direct contact suspended slab marka maxaa waaye suspended slab waa slab that are not in direct contact with the ground wax taabasho ah oo dhulka kala dhaxay ma jiro dhul maba is arkayaanba dhulka wuu ka sareeyaa yani biyaanada koowaad iyo wixii ka sareeyo kala waa okay waxaana loo dhisaan karaa inuu iska celiyo bending moment okay su'aalaan slabku waa kana had culeys la soo saaraa okay culeys ayaa la soo saaraa soo ma culeys kala duwan la soo saaraa culeyska markii la soo saaro kadib maxaa ka dhalanayo culeyska wuxuu sababaa in bending uu dhaco bending waxa la sheegay in slabka culeys uu taas u qaado okay calool uu yeelana kana sidoo kale calool uu yeelana okay waxa la rabo marka slabkan shaqada marka la design gareynayo waxa la rabo marka maxay tahay ujeedka laga leeyahay designkiisa maxaa waa inuu iska caabiyo bendingka dhici lahaay ya bendingkan inuu diido ayaa la rabaa uu iska celin karo bendinga marka maxay ku tiirsan tahay magnitude of the load qiimaha ama awoodda culayska soo fuuli doona intee lagta ay ku xiran tahay kow qodobka koowaad waa kaas waa culayska la soo saarayo ilaa intee waaye awoodiisa ya intuu gaara xaddigiisa iyo waxay ku xiran tahay length of the span yani hadda su'aal ahaan slabkan oo kale waxa waaye hadda kan waa gaaban yahay haddii ilaa halkaas oo kale uu tagi lahay waxa markastoo spanka u dheeraado markastoo momenta ay dheeraato hadhow momento dheero marka sababa okay ina elephant ay rajeynaa okay labadaas qodob ay ku xiran tahay marka kuwan suspended slabka waxa mar ay noqonayaan roof ay noqonayaan mar floor ay noqonayaan okay dhulka levelka soo koray sababtoo suspended slab inta qofka taagan wuxuu yahay floor qofkan wuxuu yahay isla qofkan hadana roof uu yahay kana roof uu ah balse kan groundiga levelka ah markasta floor level always floor waa floor ma ba dhaafo mana ka baxo okay saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna lecture-keena waa mahadsantihiin